shir ay si wada jir ah u yeesheen wasaaradda kala duwan iyo xafiisyo iyo federation-ka dhalinyarada ee magaalada Jigjiga ayaa ka dhacay isla xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Kulankan oo ah kii ugu horeeyay noociisa ay wada yeesheen wasaaradahan iyo xafiisyadan iyo federation-ka ayaa wuxuu ku saabsanaa si xoojinta arrimaha dhalinyarada iyo waliba xilliga fasaxa aynu ku guda jirno ee ardaydu ay fasaxa yihiin si volunteer ah ay labada bilood fasaxa u caawin lahaayeen dhalinyarada kale ee walaalahooda ah. Wasaaradaha shirkan ka soo qaybgalna waxaa kamid ah wasaaradda arrimaha haweenka dhalinyarada iyo carruurta ee dawladda deegaanka Soomaalida, xafiiska ka hortagga iyo xakamaynta cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS, wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska tababarada xirfadaha ee loo yaqaano TVET-ka. waxaana bilowgay shirkan hadal ka soo jeedisay wasiiradda arrimaha haweenka Marwo Raxma Maxamuud Suldaan Haybe. Volunteering-ga ah ee dhalinyaradu ay soo qalqaalisay waa barnaamij muhiim ah oo wax ka taabanaya dhalinyarta amaayaha dalka kaasoo ah ku ciribtiraya jahliga. waa sanadkii labaad inta aniga hadda aan kala qayb galay barnaamijkan volunteerism-ka ama barnaamijkan mutadawacnimada inay ku shaqeeyaan ardayda waxbarashada dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose dhexe iyo jaamacadaha intaba. waa koon iyaguna qaar kamid ah ururka dhalinyarada ee federation-ka ee horumarka iyo nabadgelyada ee magaalada Jigjiga oo iyaguna ka warbixinaya waxqabadkooda iyo sida ay diyaarka u yihiin in ay garab istaagaan dhalinyarada kale ee walaalahooda isla markaana ay ka caawiyaan dhanka waxbarashada, ka wacyigelinta cudurka dilaaga ah ee HIV/AIDS, gudniinka fircooniga ah ee gabdhaha lagu sameeyo sidii loo baajin lahaa iyo ka qaybgalka dhanka nabadgelyada iyo dhammaan horumarka kale ee ka socda deegaanka. anigoo markii hore soo bartay department-ka gender equality ana waxaan ku dhaamo aan hooyooyinka gaarsiiyo maadaama iyagu sideeda chance ay soo helinay wax ku bartaan in aan iyaga aan waxaan ku dhaamo aan anoona si voluntary aan gaarsiiyaan ugu talagalay. dhammaan xafiisyadan kala duwan iyo wasaaradahan oo iyagu kuwa si dadban ula shaqeeya ururka dhalinyarada ee federation-ka ee deegaanka Soomaalida ayaa waxa soo taraya horumarka ay dhalinyaradu ka sameynayso arrimaha waxbarashada iyo ka hortagga cudurrada faafa. waxaan xafiisyadan iyo wasaaradahan ay ballan qaadeen inay isbarbar taagi doonaan dhalinyarada doorkooda looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan horumarka dimuqraadiyadda, nabadgelyada iyo maamulka suuban ee ka jira. ugu dambeyntii shirkan ayaa la isla qaatay in dhalinyarada labada bilood ee fasaxa ah waa ururka dhalinyarada ee federation magaalada Jigjiga inuu sii faa'iideeyo dhalinyarada kale waxa uu ku dhaamo isla markaana ku baraarujiyo sidii dhalinyarada ay wax u qabsan lahaayeen isla markaana ay uga qayb qaadan lahaayeen dhanka horumarka, sameynta iskaashatooyinka yaryar ee ganacsiga iyo dhinacyada waxbarashada. Axmed Kaabe, telefishinka caalamiga ah Universal, Jigjiga.